اللهم صل على نبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaan shirka jaraa'id qabanay waan halkan kaga hadlayaa xalay kowdii habeenimo ayaa waxaan ogaaday in layga been abuuray oo niman xildhibaan ah ay u gudbiyeen saxaafadda warqad magacaygu ku qoran yahay. arrintaasi waa arrin aan waxba ka jirin, kumaan jirin, maan ogeyn, lamaan tashan, wax yaale waxaan ku ogayn ma jiro arrintaas. xildhibaanada kale ee ila midka ah ee laga been abuuray ee warqadda ku qoran waxaa ka mida walhad oo codeeyey, raggii codeeyey ahaa. waxaa ka mida maydhane oo jooga hadda halkan goobta jooga oo fasax ku maqnaa. arrimahaasi waa been abuur. been abuurkana dembi baa ka dhasha. been abuurkana dembi baa ka dhasha. hadday raggu rag waaweyn yihiin oo xildhibaanna yihiin, wax jira inay sheegaan baa habboon. ma habboona waxaan jirin inay sheegaan. ma habboona waxaan jirin inay sheegaan. waxaa kale oo warqaddaa aan ku arkay oo nasiib darro ah, rag fara badan oo fasax ku maqan oo aan golahaba saxiix ku lahayn. macnawiyan aan halkaa macneeyo, ninku markuu fasax ku maqan yahay saxiix kuma laha golaha, shirna kuma laha, ayaa warqaddaa ku qoran oo qaarkood dibadda jiraan, qaarkoodna fasax dheer jiraan. waxaa ka mid a jaamac axmed oo licaanaboole fasax buu ku maqan yahay, walaa kaga maqan yahay, saxiix ma laha, waxna ma qori karo. waxaa ka mid a yaasiin maxamuud xiir faratoon fasax dheer buu ku maqan yahay oo golaha kaga maqan yahay, saxiix kuma laha golaha, kamana hadli karo. waxaa ka mid a aamin salebaan fasax buu ku maqan yahay oo awday buu jiraa. waa ragga laga been abuurtay. dee fasaxa mar hadduu ku maqan yahay saxiix kuma laha golaha. waxaa ka mid a guuleed maxamed warsame, laba jeer buu ku qoraya warqadda, ina aragtay saxaafaddan kale mooyaane, laba jeer ayuu ku qoraya. tiyadaa lagu buuxinaya sida iga muuqata. isaguna laba jeer baa la qoray. hal maruu xaq u leeyahay hadduu ku jiro nimankaa wax qorayey. laba jeer xaqu ma laha, laba lambarna ma laha, hal miduu leeyahay. sidaa darteed arrimaha been abuurkahay waa mamnuuc. dembi baan anigu ka oogaya. ciddii geysay warqadda ee saxaafadda u dhiibtay ee magacayga ku qortay ee saxeexatay dembi baan ku soo oogaya. xeraalintaa hadda tegaya. taasi waa taa. arrimaha golaha, goluhu sifo sharci ay golaha guurtay iyo golaha wakiiladu wada xidhaan. sifo sharciyaa loo maraa. xeer baa tilmaamaya. ma aha inay wiilal suuqa intay ka qoraan u gudbiyaan warqad golaha guurta. waa mamnuuc, waa sharci darro. sifo sharci ay leeyihin. intaasaan ku koobaya iyadana. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.